واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هو عد شيطان سيد رب سبحانه وتعالى ونوشيغي الله وحليه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أبو السحباء وأرض عبد الله بن مسعود كمد أيها وحليه waxaan weydiiyey aayadan macnaheeda lahwa alxadiid waxa loola jeedo min annaasi man yashtari lahwa alxadiid faqaal ibn mascuud wuxuu yidhi wallahi aladii laa ilaaha gayruhu huwa alghinaa wallahi aladii laa ilaaha gayruhu huwa alghinaa wallahi aladii laa ilaaha gayruhu huwa alghinaa. ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وكوا صحابتي ما واحد كدورانيسا wadaad xumo banaynaya heesaha ma waxaad ka tagaysaa qowlkii Allah subhanahu wa ta'ala iyo tafsiirkii saxaabada iyo macnihiisa ay cadeeyeen wa rabbika cabsada subhanahu wa ta'ala oo dadka reer galbeedka raacay oo shaydaanka codkiisa ummadda ugu baaqaya inay dhageystaan kuwa noocaasa isaga hara. Allahu yuriidu an yatuuba calaykum wa yuriidu alladhiina yattabi'uuna ash-shahawaati an tamiiluu maylan caziima. tafsiir wadaad xumeeshaha wagashay ee heesihii u bannaynaya ummaddii oo dhahaya heesaha way fiican yihiin oo waa lagu raaxaystaa oo qalbigay u roon yihiin waxaan leenahay been baad sheegtay qalbiga nifaaq iyo gaalnimay ka buuxiyaan waana shaydaan codkii dadka raacana shayaadiintay raaceen. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل لهيب أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد وعن سؤالي برامج كيني أنوار الشريعة فرينتني حلقة نكو قادنينه waxay ku socotaa dadka heesaha iyo muusiqa dhagaysta. waxaan leenahay dhawuhu waxay ka mid yihiin nicmooyinka waaweyn ee Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu deeqay. nicmadaas weyn ha ku dhagaysanin Allah subhanahu wa ta'ala wax aragelinaya oo qalbigaaga qalajinaya oo xuska Allah jalla jalaaluhu ka mashquulinaya. arrinta haddaad samayso shar aad u weyn baad dushaada u soo jiiday. nicmada ilaahayna waa ku kufrisay. noloshaadana waxaad ku baabi'isay wax maalinka qiyaamaha dhib weyn kugu noqonaya. waqtigaagina kama aadan faa'iidaysan bal waxaad ku baabi'isay wax dhibaato iyo shar kugu ah. heesuhu waa codkii shaydaanka. shaydaan oo cadow ah oo cadownimadiisuna ay caddahay. in badanna rabbi subxaanahu wa tacaala uu nooga digay cadaawadiisa. ina ashaytaana lakum cadow faattakhiduuhu caduwa. shaydaanku waa cadow ee cadow ka yeesha ayuu leeyahay rabbi jalla jalaaluh.
marka shaydaankii cadowga ahaa ayaad codkiisii ayaad dhegaysanaysaa, soo nasiib darro ma ah. kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad booskiisii ku beddelanaysaa. meeshaad qur-aanka dhegaysan lahayd, muxaadaraadka khayrkii wanaagga ka hadlaya dhegaysan lahayd, nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasallam axaadiistiisa dhegaysan lahayd, ayaa waxaad dhegaysanaysaa codkii shaydaanka, faasiqiinta codkooda, muusiqa iyo khayr darrada codkiisa, qalbigaaga wax dhaawacaya, iimaankaaga daciifinaya, qalbigaaga ku dhalinaya nifaaq iyo diin la'aan. runtii taasi waa nasiib darro. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabso axadka muslimka ahow oo iska ilaali codka shaydaanka inaad dhegaysato. heesuhu waa cod shaydaan sida rabbi subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay. allah wuxuu leeyahay wastafziz man istadacta minhum bisawtik waajlib calayhim bikhaylika warajlika washaarikhum fi lamwaali waalawlaad wacidhum wamaa yacidhum ashaytaanu ilaa guruura. allah wuxuu leeyahay ku fududayso midkaad awooddo dadka ka mid ah codkaaga. codkaan la sheegayaa muxuu yahay? sawtu shaydaan, oo uu ku fududaysanayo ciddii asaga raacda oo asagu uu saydareeyey oo gacanta uu ku dhigay. codkan uu ku fududaysanayaa muxuu yahay? waa heesta weeyaan. a'immada mufasiriinta ugu waaweyn ayaa sidaa ku fasiray. alimaam mujaahid oo ardayga cabdullaahi bni cabbaas ah oo sufyaan uu leeyahay idaa jaa'aka atafsiiru can mujaahid faxasbuk, ayaa wuxuu leeyahay sawdkan waxaa laga wadaa allahu waalghinaa, waa ciyaarta iyo heesaha iyo hoballada iyo kabannada la garaacayo iyo muusiqa. kaasaa wuxuu yahay codka shaydaanka weeyaan. ku fududaysa arrinkaasoo ha ku raaceen wey. markaa heesuhu waa xarga shaydaanku uu dhigtay oo dadka uu ku fududeeyo oo macaasida uu ku geliyo oo xumaanta uu u qurxiyo. waxaad arkaysaa qof heesaa ah oo waxa weeyaan masaajidka laasimaya oo qur-aanka akhrinaya oo cibaadaysanaya ma arkaysid. dadka heesa iyo hoballada meelaha munkaraadka waaweyn ay ka jiraan, shaleemooyinka iyo tiyaatarada iyo meelaha sharta lagu abaabulo iyo hoteellada shaydaanku isugu tago, halkaasaa laga helaa. gabdhuhuna waa qaawan yihiin, ragguna waa daroogaday cunaan iyo khamraday cabaan. khayr darro dhan baa isugu tagtay. maxaa yeelay codkii shaydaanka markay raaceen, shaydaankii baa fududaystay xumaantii oo dhan buuna u qurxiyey weeyaan. marka allah subxaanahu wa tacaala uga cabso. dhagahaaga ka nastah xumaanta dhegaysigeeda, dhagahaaga ka nastah muusiqa iyo heesaha dhegaysigooda, dhagahaaga ka nastah xanta inay dhegaystaan. u soo jeeso kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad dhegaysato ood akhriso oo macnihiisa aad duuxdo oo aakhiradaada aad ka fakarto. dhowr maalmoodoo heese aad dhegaysato oo ku dhaafa, xagga aakhirana ciqaab kugu noqdaa, nasiib darro ayay kugu taa walaal. heesaha oo la dhegaystaa dadka waxay ka leexiyaan diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala, qalbigana waxay ku dhaliyaan nifaaq. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yashtarii lahwa alxadiid, qolooyin soo iibsanaya sheekada midda mashquulisa. muxuu soo iibsanayaa? liyudilla can sabiili illaah, allah jidkiisa dadka inuu ka dhumiyo bikayri cilm, wayatakhidahaa husuwa, wuxuu ka dhiganayaa lahwigaas iyo diintii ilaahay iyo cilmigii ilaahay soo dejiyey buu wuxuu ka dhiganayaa jeestees. ulaa'ika lahum cadaabun muhiin. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy kuwaa waxaa u sugnaaday cid cadaab ihaaneeya, cadaab lagu dulleeyo ooy ku dulloobaan ayay dadka noocaasihi leeyihiin. marka cadaabku ihaaneeya iyo nasiib darro iyo dariiqii allah subxaanahu wa tacaala ka dhunto ummaddana ka dhumiso ayaa waxaa ka dhasha heesaha dhegaysigooda. maxaa laga wadaa lahwa alxadiid? lahwa alxadiid waxaa loola jeedaa heesaha wey. sidaana waxaa ku fasiraya yacni asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, kuwii noolaa qur-aanku markuu soo degayey, waxyigu nebi moxamed sal allau aleyh wasalam ku soo degayey, cid uga aqoon badanna la heli maayo. xabru haadihi lumma,
cabdullaahi bni cabbaas ayaa sidaa ku fasiray alghinaa inuu yahay lahwal xadiidka la sheegaya. waxaa ku fasiraya cabdullaahi bni mascuud oo wuxuu leeyahay cabdullaahi bni mascuud weliba asagoo ku dhaaranaya arrinkaa markii ardadiisu ay weydiiyeen aayaddan maxaa laga wadaa. abuu sahbaa oo ardada cabdullaahi bni mascuud ka mida ayaa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey aayaddan macnaheeda lahwa alxadiid waxa loola jeedo min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid faqaal ibnu mascuud wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu huwa alghinaa wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu huwa alghinaa wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu huwa alghinaa 3 goor buu ku soo celceliyey. allah ayaan ku dhaartay alladii allahaasoo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan ahayn hayruhu asagaan ahayn macbuud xaq lagu caabudo asaga ahayn uusan jirin allahaas ayaan ku dhaartay huwa alghinaa huwa lahwa alxadiidku alghinaa heesta weeyaan. sidoo kale cabdullaahi bni cumarna waxaa ka sugnaatay oo ka ansaxday inuu ku fasiray lahwa alxadiidka alghinaa uu ku fasiray. waa kaa tafsiirkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo atbaacu taabiciintii attaabiciina lahum biixsaan raggii saxaabada raacana sidaasay ku wada fasireen. waa tafsiirkaas saxaabada iyo taabiciinta ayaa nagu filan weeyaan. tafsiir kaloo wadaad reer galbeedka raacay ee shahwadiisa iska raacay ee xumaan ummadda ugu baaqaya iyo hogaamiyayaal dadka ka leexinaya shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala una leexinaya codka shaydaanka ummadda ku baadiyaynaya u qurxinaya hobollada waxaweye dhiiri gelinaya waxa weeyaan tiyaatarra u furaya ummadda ay ku halaagaan meeshay masaajid u dhisi lahaayeen diinta ilaahay lagu faafiyo allah lagu caabudo bay tiyaatarradii soo noolaynayaan. gabdhihiina isqaawiyaan bay ka shaqaynayaan heesaha iyo hobollada ay u qurxinayaan meel kasta muustigii baktigii ummaddii ku dhex faafinayaan. waxayna leeyihin waa arrin loo baahan yahay oo aad u fiican oo ummadda ay ku hagaagayso. waxaan leenaha waa sabiilu shaytaan kuwa hogaamiyeyaasha sheeganaya iyo wadaadxumayaashooduba ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii bay ku ciyaarayaan dadkiina waxay ugu baaqayaan dariiqii dalaalka iyo baadida ay ugu baaqayaan. alimaam ibnu qayim raximahu llahu tacala arrintaasoo ka hadlaya wuxuu leeyahay wayakfii tafsiiru asaxaabati waataabiciina lilahwi alxadiid biannahu alghinaa faqad saxa dalika can ibni cabbaasin wabni mascuud. wuxuu leeyahay alimaam ibnu qayim tafsiirka saxaabada iyo taabiciinta ay fasireen lahwa alxadiid inuu ghina yahay tafsiirkaasaa ku filan tafsiir wadaad xumo shahwa gashay ee heesihii u bannaynaya ummaddii oo dhahaya heesaha way fiican yihiin oo waa lagu raaxaystaa oo qalbigay u roon yihiin. waxaan leenahay been baad sheegtay qalbiga nifaaq iyo gaalnimay ka buuxiyaan waana shaydaan codkii dadka raacana shayaadiintay raaceen heesaha dadka dhegaystaana wa min atbaaci shayaatiin shaydaan codkii bay raaceen. tafsiirka saxaabada ayaa waxa weye nagu filan ayagaa dariiqii hanuunka noogu yeeraya ayagaa ummadda noogu baaqay. cabdullaahi bni mascuud saxaabiga jaliilka min fuqahaa'i saxaaba ka mida iyo xabrul umma iyo cabdullaahi bni cumar 3 saxaabi oon kala dhicin ayaa tafsiirka aayadda sidaa maray wey. turjumaanul qur'aan ibnu cabbaas wey nebi maxamed baa ugu daceeyey sala allahu calayh wasalam qur-aanka fahankiisa weeyaan. cabdullaahi bni mascuudna waa saxaabiga yidhi aayad ma jirta soo degtay ilaa waxaan garanayaa cidday ku soo degtay iyo meeshay ku soo degtay. haddaan ogahay axad iga aqoon badan oo gaadiid uu gaari karo meesha uu joogo waan aadi lahaa buu yidhi. yaa waa kuwa saxaabadii ma waxaad ka dooranaysaa wadaad xumo bannaynaya heesaha ma waxaad ka tegaysaa qowlkii allah subxaanahu wa tacaala iyo tafsiirkii saxaabada iyo macnihiisa ay caddeeyeen. wa rabbi ka cabsada subxaanahu wa tacaala oo dadka reer galbeedka raacay oo shayddaanka codkiisa ummadda ugu baaqaya inay dhagaystaan kuwa noocaasa isaga hara dariiqii saxaabada raaca ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin cisaynayaa wey. waxaan leenahay akhilkariim heesaha oo la bannaysto waa dhaqan lagu yaqaano dadka xunxun
aakhiru zamaanka dadkaas inay soo baxayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay. xadiidka bukhaari uu wariyay asagoo mucallaq ah, dawaraan iyo bayhaqina ay markaa wasliyeen, culimmaduna ay saxiixiyeen. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la yakunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxirra waalxariira waalkhamra waalmacaazif. ummadayda waxaa ka mid ahaan doona qolooyin xalaashan doona farjigoo zinada xalaal ka dhigaya. zinadii bay xalaal ka dhigayaan. taasna way dhacday. dad ummadda ugu baaqaya zinada iyo fuxshiga, ummaddii ugu yeeraya oo meel kasta in lagu sameeyo, iyo xariirta in la xirto, iyo khamrada in la cabo, iyo heesaha iyo hobollada iyo kabannada in la dhagaysto. qolooyin noocaas ah imaan doona. kuwaas ahludalaal weeyaan. ilaahay ka cabsa jalla jalaaluhu kuwaa iska ilaali dhaqanka noocaasa ku dhaqmaya. xumaantaada iyo qayigaaga iyo heesaha iyo baktigaad dhegaysanayso ka soo laabo, allah jalla jalaaluhu u soo laabo. shareecaturaxmaan, meesha naxariista, qalbi deganaanshaha, wanaagga, nolosha fiican ay taallaa waa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. u soo laabo, bishaana uga faa'iidayso. waxa weeye khayr iyo wanaag. ilaahay caabud, rabbigaa ku xirow, kalaamkiisa dhegaysa, qalbigaa kuu degaya, wanaag baad helaysaa. sidaa ayaan leenahay dadka heesaha ku mashquulsan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa annaga iyo ayagaba inuu nagu hanuuniyo maa fiihi salaaxu albilaadi waalcibaad. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.